السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشر كيكوات برشادة Adobe Illustrator CC. عشر كينان وحو كسابسان ياهي overview-ga Adobe Illustrator CC si aad wax badan uga ogaato software-ka aan baran doono. Waxaan ku bilaabaynaa waa maxay Adobe Illustrator. Adobe Illustrator waa software lagu samayn karo artwork-yo vector based ah. Vector based waxaan ula jeednaa artwork aad ku samayso Adobe Illustrator wax jajab ah ma soo gelayo. tusaale ahaan haddii aan soo qaadano small icon oo cabirkiisu uu yahay 25 pixels square oo aan zoom garayno ama aan weynayno ilaa taqriiban 24,000% waxaad arkaysaa marka uu joogo artwork-ga Adobe Illustrator in uusan wax jajaba uusan gelaynin uu weli sidiisii sharp u yahay uu clean u yahay. laakiin bal markaan dhanka kaleeta aan geyno Photoshop oo ayada ku shaqaysa pixel based pixel waxaa laga wadaa waa boxes yaryar ee isku tagtagay halka vector-kuna uu isticmaalayo circles isku tagtagay. soo markii aan geynay isla artboard-kaas ee aan zoom garayno wax ku dhow 25% markaan Photoshop geyno waad arkaysaa sida uu noqonayo jajabka uu noqonayo ama uu jajabka u soo gelayo. yaa isticmaalo Adobe Illustrator. Adobe Illustrator waxaa isticmaalo graphic designers, naqshadeeyaasha, artists and illustrators, artistayaasha iyo kuwa illustration ka sameeya, web designers, dadka naqshadeeya website-yada, and fashion designers iyo dadka naqshadeeya fashionka dharka naqshadeeya ayaa isticmaala. maxaan ku samayn karaa maxaan ku abuuri karaa Adobe Illustrator. Adobe Illustrator waxaan ku abuuri karnaa wax walba oo aan maskaxdeena soo galo ama aan suureysano ama aan sawirano. Website templateska adigoo ku abuuri kara website very powerful ah. waxaad sidoo kale aad ku samayn kartaa mobile UI design-ka ama user interface design-iska. waxaad sidoo kale ku samayn kartaa business infographics-ka yani ka tegin funny cartoons waad ku samayn kartaa Adobe Illustrator CC. haddaba maxaa loola jeedaa CC waxaan ula jeednaa Creative Cloud. Adobe inta aanay u guurin Creative Cloud ama storage online intaysan u guurin waxaa la isticmaali jiray stand alone applications ku duuban cajalado. Adobe waxay gadaal u guurtay oo future generationskan ay u sii socotaa storage online ah taa oo u suuragelinayso wax kasta uu qofka designerka u baahnaa inuu heli karo isagoona u xanimin storage-ka computerkiisa oo ku maqan xaafadiisa. meel kasta uu qofka designerka uu joogo inuu ku samaysan karo naqshadihii ama howlihii markaa ku taagnaa. waxaan idinla wadaagi doonaa packageska ay Adobe bixiyaan iyo qaababka ay u bixiyaan, balse cashir dhan oo ku saabsan Creative Cloud-ka iyo sida aad subscription ugu samaysan karto iyo haddii adoo Soomaali jooga aad samaysan karto aad samaysan karin waxaan uga hadli doonaa insha Allah hal session ama hal xiiso. waxay ila tahay inaad overview wanaagsan ka haysato software-ka aan barashadiisu maanta bilaabayno ee Adobe Illustrator CC.